qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee soo jeeda degmooyinka Dhuusamareeb Guraceel oo maanta ku shiraya magaalada Dhuusamareeb ayaa ka hadlaya shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug iyo isku dhafka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna. Odayaasha ayaa sheegay in si wada jir ah ay ula dagaalami doonaan cid walba oo ka soo horjeesata shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug isla markaana isku dayda inay faragelin ku samayso heshiiskii dhexmaray Ahlusunna iyo dowladda. Ergooyinka ayaa waxay ugu baaqeen inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug iyagoona ka dalbaday inay ka hor imaan dadaalada nabadda ah oo ay wado dowladda federaalka ee Soomaaliya. waa in soo dhaweynaynaa waxaan kaloo digniin siinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad heshiiska muhiimka ah ee jilbaha dhulka loo dhigay qoomkii isku daya inay nabad darro ay ku soo abuuraan ama ay rabaan inay hoggaanka mar labaad ku hajaaciyaan meel aan loo aqoon in loo guuro waxaan ugu digaynaa dadku maanta afka iyo indhaha iyo adduunyahaba waa ka diyaar garoobay waxaan rabnaa nabadda inaan daadihinno helno miro dhalkeeda waxaan rabnaa wixii wax tabanaya afka hadalka inaysan dhaafsiin gacan iyo ikhtilaafna ay joojiyaan aad iyo aad ayaa u mahadsantiin heshiis aad u wanaagsan buu ahaa ummaddu aad ay ugu gooxday walla isku aqbalay waxaan taageeraynaa heshiiskii la gaaray oo ay gaareen dowladda federaalka iyo maamulkii meesha ka jiray oo Ahlusunna wal Jamaaca waxaan soo dhaweynaynaa heshiiskii baaqi ka dambeeyay oo loogu dhiibay ciidamada qalabka sida amnigii lagu wareejiyay oo lagu heshiiyay dowladda federaalka inay amniga la wareegto waxaan taageeraynaa ilaahay idankiis wanaagii halkaas ka yimid aad iyo aad waxaan u bogaadinaynaa dowladda federaalka qaybtii ay ka qabatay inay dhammaystirto meeshii ay uga tagtay ka raad qaado raggii joogay ay uga tagtay u timaad ayaanu doonaynaa 11 waxaan ugu baaqaynaa cid kastaba ciddeeda ayadoo salaamaysa ama wanaagga iyo sharafta u imaanaysa waxaa loogu baaqayaa inay yimaadaan wanaag iyo sharaf ku yimaadaan ehelnimo ku yimaadaan sida maanta ay u qurux badan tahay ka soo qayb galaan intaasna waxaan u celinayaa 12 beelood waxaan taageersanahay horta heshiiskii la gaaray oo halkan Dhuusamareeb lagu gaaray asagaas waa taageersanahay waxaan taageersanahay isku darkii la isku daray ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda dhexe iyo oo lagu wareejiyay amniga ayadana waa taageersanahay. dhawaan ayaa la filayaa in shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyadoona ay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb ergooyin badan oo ka qayb galaya shirka dhawaana ka furmaya magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Cabduuli Tooxow TV-ga caalamiga ah ee Universal Dhuusamareeb.